walaalayaal waxaan ognahay baryahan waxyaabaha ka soo kordhay ee walaalaheena gobolka Sool meesha Dhumay la yiraahdo dagaalka ka dhacay oo aad iyo aad runtii loogu wiiqday dagaalkaasi intii ku dhimatay waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto intii dhibaato ay soo gaadhay oo qaraabo iyo ehlahaydna Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabir iyo iimaan ha ka siiyo arintaasi sideedaba waxa weeyaan waa arin sharciga una ogoleyn dadku inay isdilaan waa isku dilaan arin qabiil ama waxa una sharciga una ogoleyn qabiilada nabigeena kaleey salaatu wasalaam aad iyo aad buu uga digay marka ay qabiiladu noqoto ana ka xoog badan iyo ana ka laandheeraysan iyo aniga marka ay noqoto nabiga sallallahu alayhi wasallam meel aad iyo aad u adag ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam gaarsiiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laysa minna man daa ila asabiyya nagamid ma habu nabiga sallallahu alayhi wasallam qofka ku baaqa oo ku habarwaca casabiyo iyo ana reehebela qofka ku dhawaaqa oo ku baaqa nagamid ma habu nabiga sallallahu alayhi wasallam diintayada iyo shariicadayada iyo hadigayga kuma sugnaba qofkaasi nabigu leeyahay waxaan leeyahay dadka arinta ku dagaalamaya qabiilka yaani dhiigga ku galaya boqolaalka qof iska dilaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsadeen Ilaahay oo toobad keeneen tooba furan qofku waa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo laabto waxa loo baahan yahay aqliga inuu shaqeeyo waxa ku yaani halka ku leeday oo ku baabaay dad ehela oo qaraabo ah oo xigaala oo xidida oo wada dhashay oo meel ay kala tageen haba yaraatayna jirin oo dhinac kasta laga ooyayo waxa weeyaan kan la dilay labadan isdilay labada dhinacba oo laga wada ooyay oo dadkii gacal iyo xigaal yay wada yihiin iyo sadog iyo seedib ay isku wada yihiin waa la wada ooyaya meel kastana waa laga barooranaya abti iyo dhamaan halka baa la isku wada dilay marka waxaan leeyahay dadka arinta ku jira ee reerka dagaalamaya aad iyo aad annaka ugu xunbaan waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keena Ilaahay u toobad keena يعني شلay bay ahayd wixii arinta la galay ee dadka la dhaarsay muxuu ahaa odayadii ay dhaarteen ee ballan Ilaahay halka lagu galay ee culimo ay gashay wax garad u yimiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga boqo dhaarta la burinayo ayaa waxay keenaysaa iyo ballanta laga baxayo ayaa ciqaab badan leh marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala la toobad keeno arinta Ilaahay uga soo noqdo baan leh nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu unsur akhaka dhaliman aw madluman walaalka u heeli gar iyo gardarraba haduu gar daran yahayna garabka qabo oo joojiyo dulmiga ka qabo haduu gar leeyahayna da gartiisa si waa sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noo tilmaamay weey waxaan leeyahay yaani waxa weeyaan maamulka Somaliland oo waxa weeyaan iyaga laftoodu waxa weeyaan marka horena de arinta wax ka qabtay oo waxaan ka qabanaynaa yirina waxaan leeyahay arinta dowrkiini ka qabta waxa weeyaan dadka wax garadka oo gobolka u dhashay farahay ku soo fiiqayaan dawladda waxay leeyihiin waxa weeyaan dowrkoodii ma ciyaarin bay leeyihiin inta wixii looga baahnaa ma qaban bay leeyihiin waxa weeyaan arintaasi inay si mugle oo miisaan leh oo culays leh in arinta faraha loo saaro way waayo waxa weeyii hadii gobolada intoodii kale amni iyo nabadgelyo ay ku naaloonayaan de walaalaheen dhibaatada haysatay inaan ka murugoono way waa in dhammaan la wada kaco oo culimada iyo waxa weeyaan wax garadka iyo dhalinyarta iyo dhammaanba waa in arinta laga gurmado weeyii waayo dhibta walaalka haysi waa mid adiga ku haysa weey waa inaan ka damqano oo ka dhiidhino oo arintaasi runtii ay aad iyo aad ay noo taabato weey waxaan leeyahay waxa weeyaan odayada wax garadka ee kale ee deegaankana guud ahaan waxaan leeyahay arinta wax laga qabto arintani waa arin u baahan inaan cid bal lagu eegin weey waa 10 jeer bay soo noqotay waxay u baahan tahay gurmad guud oo xataa waxa weeyaan cid kasta oo ka naxaysa dadkaasi oo waxa weeyaan walaaltinimo iyo Soomaalinimo ay ku jirto inay wax ka qabataan loo baahan yahay maanta tii cid lagu eegayay maaha ama la oranayay cid ha ka qabato ama kana waxa sameeyay la oranayay maaha arintaasi waa arin waxa weeyaan dhibaato weyn weey oo runtii aad iyo aad waxa weeyaan dadkii u taabatay oo deegaankii u taabatay oo waxa weeyaan dadkii wax qaban lahaay ee gobolka horumarkii laga sameeyay lahaay oo dhan saameyn badan ku yeelatay marka waxa weeyaan saan walaalaheena u dajin lahayn ee aan nabadgelyadooda uga qayb gali lahayn waxa loo baahan yahay walaalayaal culimo iyo caamo iyo wax garad iyo aqoon-yahanba iyo dhalinyaraba in arinta laga qayb galo waxaan leeyahay dadiyowga arrimahan aloosaya ee sharka afuufaya waxa weeyaan naarta waxa weeyaan dabka shidaya waxa weeyaan dabka gaaska ku shubaya ama isticmaalaya muxuu ahaa TV-yada ama isticmaalaya waxyaabahan la yiraahdo media isticmaalaya kala duwan waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada arintaasi waxa weeyaan in dhulka la dhiga loo baahan yahay oo cidday wax qabanaysa ay arinta joojinteeda iyo waxa weeyaan wax ka qabadkeeda la isku taago waxaan ku soo ururinayaa aan ku soo gabagabaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay dadka dagaalamaya idinka ayay in badan arintu ay waxa weeyaan xaqiina ay jirtaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keena
سفي عن نفتي أو أخرستا وحاتين قرتا ولا لا تين ضد دشاتين دجان باتين إلهي سبحانه وتعالى كعبصدا هلا وجاد أدون كان اللي جت وآخر اللي تجي وحكوا درس عنا يهبي راتي مجرتو ريركي أردن هداد مالنت قيامة بري كان قنص والله ده يا ربي نفسي الله ده نفسي الله ده هاي ودي هي هرتاجنت هاي والله ده لو دمان نار تكو ضجر وحلا وحي أردن وإله هنيجي بدبادي وحلو بهني ولا ليال إن هرنتها الإيجو وسمير قبته وحوينا هرنتها الله إيجو إلهي الله توبت كانوا سرنا الله حساب تمو dhalinyarta yareer ee soo koraysa waxay mustaqbalkan laga baabiin odayadu ay waxa weeyaan si rasmi u xisaabtamaan si fiican waxa weeyaan la isku dhageysto go'aanada iyo waxyaabaha dadka dhexdhexeeyay ay gaaraan la fuliyo ayaa loo baahan yahay mar labaad iyo mar saddexaad ayaa waxaan leeyahay intii ku dhimatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisto inta dagaalka ku jirtana Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqligoodii iyo garaadkoodii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo celiyo inteena kalena waxa loo baahan yahay gurmad la xaadile oo mug iyo miisaan la inaan kaga qayb galno وصل